السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال هالكاس محad ku aragtiin waa su'aal. halkaas waxaa ka muuqda bariiskan shalan soo gatay waan karsaday meel duur oon ka shaqeynay ayaan joogay. bariiskii waxaa ku qoran bariis qaali buu ahaa, waxaa ku qoran basmati rice. waa bariisyahan la xamadan waaye. calaamooyinka aad ku garan karto bariiskanito waa bariiska la xamadan inta badan yuu ku imaadaa. bariiskan markaan kariyay oo cabaar u yaalay waxaa saan u kala taagan yahay. bariiska dabcan bariiska ay Soomaalida aad u jeceshahay waaye. laakiin wax yar baan rabaa inaan idin tuso tusaale ahaan ood fiirisiin bariiskanito wixii waan ku subin doono. bariiskan sidaad arkayso waa bariis waan ku duduubaya. fiirso, bariiskan markaad duduubto oo saa u duduubto waxaa kuu soo bixi inuusan bariis ahayn, inuu wax kale yahay oo bariis uu ahayn yaa kuu soo bixi doonta. marka fadlan muslimiinta meel walbood joogtiin aad u fajignaada. waxan ayaa suuqa ku jira oo dadka laga gadaaya. waa bariiska Soomaalida ay jeceshahay oo markii ma aragtaa la kariyana kala daadanayo oo ma aragtaa kudigood ay ku daataan oo ay leeyihiin waa qaali. laakiin meeshan waxaad ka arki doontaa bariiskan wakaas isku dhage. waxaan ku tusi bariiskan fiiri, dhulkaan ku dhufanayaa. markaad dhulka ku dhufto ma kala daadanayo, waa ambiir sida ceeg ahaan buu iskugu dhagay. bariiskan waa bariiska suuqa ku jira oo ceega laga suubiyey. fadlan wixii aad ka naxayso bariiskanayto usii gudbi, videogan la share garay. waad arkaysaa, waad ila daawatay. waa kaa bariiska lagu leeyahay suuqa ku jira. waa bariis qaali ah, waa bariiska aan maalin walba gadano oona cunno. markaad suudhiisana caadi sidii bishooriga usoo shiiraya. waa bariis aad u jeclaan doontiin markaad aragtiinkii maarata aragtidiis iyo xarufta kasoo baxayso. laakiin meesha bariis kuma jiro. waxaan waa caag baa lagu dhalaaliyey, lagu jarjaray, bac lagugu soo riday. fadlan muslimiinta gaarsii. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.